noogu soo dhammaaday kormeerkaasi nabadgelyo. qodobka koowaad ee degmada Agabar ka jira waxa weeye waa nabadgelyo. adeegyada asaasiga ah wixii ay haysteen iyo wixii ka dhinaa intaba qoraal baan ku seenaa waxaan la wadaagi doonaa hay'ad kasta oo ay khusayso iyo wasaarad kasta oo ay khusayso. barasaabka gobolka Gabiley Maxamuud Xasan Salebaan Doob ayaa maalintii labaad ku sugan degmada Agabar ee gobolka Gabiley waxaana barasaabku saaka kormeer ku tagay wasaaradda waxbarashada gaar ahaan dugsiyada wasaaradda waxbarashada ee sidoo kale xarunta caafimaadka ee xanaanada degmada Agabar ee gobolka Gabiley degmada Agabar oo halkaas ay ku soo dhaweysay khadra oo team leaderka caafimaadka sidoo kale waxay booqdeen xarunta markiska ee quraanka xafidka ee dhalinyarada degmada Agabar ay wax ku bartaan sidoo kale waxa soo kormeeray wakaaladda biyaha siisa magaalada Agabar ee gobolka Gabiley waxaana halkaas ku qaabilay shaqaalaha sukuuriyada wasaaradda biyaha ee gobolka Gabiley gabadhiina waxay soo kormeereen halkan waa xarunta dawladda hoose magaalada degmada Agabar ee gobolka Gabiley oo barasaabku uu safarkiisa ka bixiyay waxaa loo soo gabagaboobay safarkii iyo booqashadii gudoomiye barasaabka gobolka uu ku bilaabay shalay oo bisha 15 ahayd ilaa xalay ilaa maanta kilinkii hore waxaan ku jirnay kormeerka iyo korgalka xaaladaha degmada iyo nabadgelyada ee arrimaha bulshada nasiib wanaag meel seegtay oo maanta noo harsan ma jirto annaguna waan ku faraxsanahay degmahan anoo degmadii afkeeda ku hadlaya ummadii uu la kulmayna dhalinyar haween shaqaale dawladeed culimo xoqaal dhammaantoodna way ku faraxsanaayeen la kulanka barasaabka taasi waxay ku timid niyadsamida iyo magaranaysaa dabciga habdhaqanka barasaabka cusub waan ku hambalyeynayna inta hadlayna ilaahay sidaa loogu soo wada alxamdulilah xafiiska degmada Agabar waxaan ku soo gabagabaynay kormeerkii aan ku soo marnay degmada Agabar iyo deegaanada hoos yimaada dhammaan ee Agabar gudaheedaba deegaamadaas oo aan ilaa shalayto aan xaaladooda u soo kuurgalay hadday tahay waxbarashada caafimaadka biyaha xanaanada xoolaha deegaanka maxay tahay arrimaha bulshada diinta iyo awqaafta waan soo marnay adeegyada ka jira degmada tuulo iyo magaalada gudaheedaba waan soo kormeernay iyo qayb degmada Gabiley ka midaba walillahi alxamdu waxaan noogu soo dhammaaday kormeerkaasi nabadgelyo. qodobka koowaad ee degmada Agabar ka jira waxa weeye waa nabadgelyo. ilaahay nabadgelyada ha inoo adkeeyo. nabadgelyo degmada Agabar dadka joogaana waa dad nabadgelyada jecel weey runtii aad baan uga mahad celinaynaa sida quruxda badan ay noogu soo dhaweeyeen degmada Agabar. adeegyada asaasiga ah wixii ay haysteen iyo wixii ka dhinaa intaba qoraal baan ku seenaa waxaan la wadaagi doonaa hay'ad kasta oo ay khusayso iyo wasaarad kasta oo ay khusayso oo qaranku leeyahay waana horgeyn doonaa degmada Agabar baahiyeeda haddii Alla idin ka dhigo insha Allah.